Waa tuma gabadha baraha bulshada sida ay u soo gashay laga daba haray aynan laga daba hadlin. Waxaa lagu magacaabaa Maria, laguna naanaysaa boqoradda isteelka. Boqoradda isteelka waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho, kuna soo barbaartay boqoradda isteelka. Ilaa iyo imika lagama hayo qof ehelkeeda ka mid ah wax muuqaal ah mise kama soo muuqan baraha bulshada. Ilaa iyo imika boqoradda isteelka magaca kama yara, beenna kama aha marka muunad laga fiiriyo. Waa gabar isteel ku dhiiglad ah. Isteelkeeda marka aad fiirisa ayaad bacajabin kartaa oodna ka arki kartaa inay tahay gabadha isteelka ugu shidan Soomaalida dhinaceeda marka loo eego. Boqoradda isteelka waa gabar jecel inay u baxdo dalxiisyada ayna aada mar walba meelaha damaashaadka iyo baashaalka leh. Boqoradda isteelka waxa ay asxaab la ahayd dad ay ka mid tahay Shuushu Cabdalla, balse ilaa iyo maanta sida ay u gaartay Shuushu Cabdalla 1 milyan oo followers qaybta TikTok weli kama soo muuqanin dadkii u hambalyeynayay boqoradda isteelka. Boqoradda isteelka arrinkaasi aad ayaa loogu dhaleeceeyay, waana laga shakiyay, dad ayaana ku duray inay ka xun tahay horumarka walaasheed Shuushu Cabdalla ay gaartay. Balse walaasheed ilama aha aniga inay ka xumaanayso horumarkeeda. Shuushu Cabdalla imika waxa ay safarkeedii ugu horreysay tan iyo markii ay Muqdisho ku dhalatay u aaday magaalada Hargeysa. Magaaladaasi oo ay shalay ka degtay ayaa aad iyo aad loogu soo dhaweeyay boqoradda isteelka. Boqoradda isteelka waa markeedii ugu horreysay ee u baxda safar aanan Muqdisho ahayn. Tan iyo markii ay dhalatay burburkii waxa ay ahayd gabar ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda, halkaana wax ku soo baratay waxbarashadeedii hoose dhexe ilaa iyo dugsiga sarena halkaas ku soo qaadatay. Balse gabadhan boqoradda isteelka dad la soo dhigtay dugsiga hoose dhexe ilaa iyo kan sare ayaa taariikhdooda inooga warbixiyay, oona inoo sheegay inay ahayd gabar marka yareed aad u jecleed boonbalaha, ahaydna gabar xishood badan oo deggan, akhlaaqna leh, aanan afka iyo faraha ka falnayn, oo aanan qof walba gacmaha ku taagtaagin. Boqoradda isteelka safarkeeda labaad waxaa la qorsheynayaa inuu noqdo Koonfur Galbeed oo ay ku wajahan tahay sida iyada dhowaan ay sheegtay. Boqoradda isteelka shakhsiyad ahaan waxaa lagu xantaa laguna arkaa inay isjecel yihiin wiil lagu magacaabo Hakuul. Wiilkaas oo ah isagana wiil da'yar iyada camal ah oo barta TikTok ka ah istaarka Soomaalida oo aad iyo aad uga shidan, ayaa mar walba la isku arkaa isaga iyo boqoradda isteelka oo laga dhex dareemaa dhexdooda inuu ka dhexeeyo shukaansi ama isgaadgaad inay ku hayaan. Boqoradda isteelka ilaa iyo imika si saxan oogama jawaabin inay Hakuul jeceshahay iyo in kale, balse qofkii garaad leh marka uu isku fiiriyo indhahoodana si fiican u eego waxa uu ka dareemi karaa in boqoradda isteelka ay jeceshahay wiilkan. Boqoradda isteelka waa gabar wadaniyad ah, ku faantana calankeeda hooyo mar walba, jecelna inay u soo bandhigto bulshooyinka caalamka calankaas oo qof walba oo Soomaali ah ay waajib ku tahay in uu sarmariyo oo uuna ka sarmariyo dhammaan calamada dunida yaalla si uu u noqdo calanka ugu sharafta badan, marna aanan dhulka ku dhicin. Calankaas ayaa ah midka na wada deeqo, haddii aynu waynana aynu hod ku dhaceyna. Asxaabta intaas waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdeeda. Fadlan haddaad inagu cusubtahay Facebook page-keena follow soo dheh, sidoo kale YouTube channel-keena subscribe dheh. aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Fadlan muuqaalka share garee oo like inoo saar. Maalin wanaagsan.